بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. waxaan halkan ka gelaynaa insha allahu tacaala suurat lbalad oo ka mid a suuradihii ama qur-aankii makiga ahaa. marka ilaahay wuxuu ku bilaabanayaa dhaar uu dhaaranayo oo uu ku dhaaranayo maaragtay xaramka ama beledulxaraam uu ku dhaaranayo. bismi illaahi araxmaan araxiim. ilaahay magaciisaan ku bilaabanayna allaha naxariista caamka iyo midda khaaskaaba naxariista. allah wuxuu yihi subxaanah laa uqsimu waxaan ku dhaaran bihada albaladi beledkan baan ku dhaaranayaa, yacni beled alxaraam oo maka ah. waxaana loogu dhaaranayaa yacni waxaa waye qeymaha iyo sharafta ay leedahay ilaahay agtiisa ay ku leedahay, ama maka yani umulqura ay ku leedahay. maxaa yeelay beytullaahi alxaraam baa ku yaala maaragti. waa beledkii uu deganaa nebiyullaahi ismaaciil iyo nebiyullaahi maxamed sala allahu caleyhi wasalam oo manaasikul-xajina loo tegayo weeyaan. marka beled cajiib badan waaye oo ilaahay uu barakeeyey. laa uqsimu waa dhaaranayaa bihada albaladi beledkanaan ku dhaaranayaa. wa anta adigu waayuu yihi alle nebiga lale caleyhi salaatu wasalaam xilun baa tahay bihada albaladi beledkan mid ku negi ama mid mataqaanaa yacni degay oo maaragtay ayaa tahay waay, ama mid loo xalaaleeyaa tahay. labadaba macnahaas waa ku jiraa. yacni anta xilun bihada albaladi ay muqiimun ayaa tahay bihada albaladi beledkan mid ku negi yacni ayaa tahay. tashriifan lak ayuu kuu yahay arrinkaas iyo maaragtay weyneyn qadarkaaga la weyneynayo ayuu mataqaanaa yacni beledkuna sidaas oo kale isaguna wuxuu ka helay yacni imaatinka nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo dhalashadiisa iyo soo bixintiisa tashriif badan iyo tacdiim badan ayuu ka helay. wa anta adiguna xilun xalaal ayaa tahay ama xilun kii degi ayaa tahay bihada albaladi oo ku negi oo muqiim ku ah ayaa tahay bihada albaladi beledkan oo beledulxaraam ah. wa waalidin baan ku dhaartay yihi alleh. wa waalidin waalid ayaan ku dhaartay. marka wa anta xilun bihada albaladi waxaa waaye yani beledkanan ku dhaaranayaa alladii anta muqiimun bihi oo adigu aad tahay kii ku negi oo jooga aad tahay. anta muqiimun bihi. wa waalidin baan ku dhaaranayaa waalid kii mid wax dhalay iyo wamaa walada wuxuu dhalay, yacni waalid mid wax dhalay iyo kuwa dhalay sida nebiyullaahi aadam iyo wixii ka farcamo bini aadankaas tanaasulka faraha badan iyo mid kastoo wax dhalo mawluuda xayawaanaadkii dhammaa oo dhan soo gelayaan. marka meesha waxaa lagugu baraarujinayaa weynanka ay leedahay aayatu tanaasuli watawaalud, yacni tanaasulka isdhalidda la isdhalayo iyo tawaaludkaas aayad weyn weeye oo aada iyo aada u weyn. taasaa lagugu baraarujinayaa oo ku tusinaysa ilaahay qudradiisa xikmadiisa cilmigiisa allah ku tusinayda wey. taasa iyadana meesha ku jirto oo la baraarujinaya maaragtay. wa waalidin baan ku dhaartu yihi alle iyo wamaa kii walada uu dhalay. laqad khalaqnaa waanu abuurnay al insaana insaankii waxaan ku abuurnay fii kabadin, yacni kabad noog dhexdiisaan ku abuurnay wey. bimacnaa laa yazaalu fii mukaabadati dunyaa, yacni adduunyada inuu maaragtay ku noogayo oo la dirirayo oo ku dadaalayo oo shadaa'ideeda uu mataqaanaa la kulmayo xataa yamuut ilaa an yamuut ilaa uu ka dhinto. insaankii saasaa loo abuuray waay. yacni duniyadan korkeeda lagu abuuray, markaasuu halgankaasu ku jiraa oo dadaalkaasu ku jiraa oo yacni waxaa weeye beer xanuun
waxa weeye maalin kasta mashaqo iyo shidaa'ideedii yuu la kulmayaaho ilaa uu adduunyadan ka tago oo qofku maaragtay uu ka dhinto. marka waxa weeyaan markii uu dhintana haddii howlo kalaa sii bilaabanayo, shadaa'idul qabri allah naga badbaadiyey, barsakhi axwaashoodii oo dhan, kabacdina shadaa'idul aakhirati oo sii hortaalla, midoobo miday kasii dambeysaa way, midoobo miday kasii dambeysaa, allah noo fududeeyay. marka laqad khalaqnaa waana abuurnay biyo alle al insaana insaanka fii kabadin baan ku abuurnay, dhib waaye noog oo adduunyadan yukaabidu fiiha ayaan ku abuurnay. ilaahay wuxuu yidhi subxaana, yaxsabu ma wuxuu malaynayaa insaankii ibnu aadamkii an lan yaqdira inaanu awoodin calayhi korkiisa axadun qofna inuusan awoodin oo waxba u dhibi karaynin, walaa yantaqimu minhu axadun qofna inuusan ka aarsan karanin dulmiga iyo kufriga iyo cinaadka uu hayo oo sayi-aadka iyo dunuubta uu kasbanayo. ma wuxuu isleeyahay cid kula xisaabtamayda iyo cid ku qabanayda yaa masaasuu malaynayaa waay. marka danigaasoo kale qofku ku jiraay waa qof khaldan waay, waa qof khaldan oo haddii raggii nebi maxamed kasoo horjeeday sala allahu caleyh wasalam ayaa ku kadsoomay waddo xun ay qaadeen bay ahayd. qofkii ku daydaana waa un ayadii oo kale. ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa an lan yaqdira inaanu kari karaynin calayhi korkiisa axadun qofna inaanay qabanayn oo ka intiqaamin oo soo qaba karin. taas miyuu malaynayaa waay. yacni qofna inuusan waxa sayi-aadka xumaanta u qabanayo. yaquulu wuxuu leeyahay insaankaas yacni qaabdaradiisa, ahlagtu waxaan bixiyey maalan xoolo lubadan ee fara badanoo kulansanan bixiye buu leeyahay, oo dacwadaas uga soo horjeedo oo diinta ilaahay uu kula dirirayo. taasuu maaragtay uyuu kusoo la taagan, wuxuu leeyahay xoolan ku bixiyo kusoo halaagay. marka wax la qaban karo ama wax iga hor imaan karayaa ma jiraan. ayaxsabu ma wuxuu maleeyey buu yidhi alle an lam yarahu inuusan arkaynin axadun qofna. ma taasuu maleeyey waay yaa oon maalkiisaas laga weydiinayn, xoolahaas uu maarata faraha badan uu sheegayo inaan beri lala xisaabtamaynin. ila wax kastood kasbato adduunyadan aad kasbato gacantaada soo gala, maalinta qiyaame xisaab bay kuula fadhiyaan waay. oo xoolahaas waxaa lagu weydiinayaa xaggee ka keentay. haddii ay meeshaas ka keentay meel wanaagsan tahana xaggee ku bixidaa kuu taalla iyadana, iyo see u bixiday, intaasoo dhanba way kuu taallaa waaye. yani xaggee ka kasbatay, xaggee maaragtay xoolahaas ku bixiday, meel xaaraama mise meel xalaala, meel ilaahay jecelya mise meel waxaasoo dhan howlahaasoo dhan waa su-aalo imaan doono oo na wada sugaya waay. ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa an lam yarahu inuusan arkinin axadun qofna uusan warba u haynin, sidaasuu malaynayaa layidhi. oo maalkaas iyo xoolahaas uu kasbanayo waxa uu suubinayo ma wuxuuba isleeyahay ciduba ku arki maydee, yacni saad rabto iska yeel, saad rabto iska yeel. arrinkaasuna ma soconayo waay. ilaahay wuxuu yidhi subxaana, alam najcal miyaanan u yeelinin, waa u yeelnay waay, lahu insaankii miyaanan u yeelin caynayni laba indho oo wax ku arko. indhahaasaad wax ku arkayso yaa ku siiyey, inahu llah, alla ayaa ku siiyey. laakiin adigu waxaad gacan ku leedahay maaha, cid bini aadan ahoo maaragtay kugu tabarucdana ma jirto. inamaa humaa waxa weeye catiyatullah, waa ilaahay siismadiisa, waa nicmooyinka faraha badan ee ilaahay noogu nicmeeyey ayay ka mid taha. u baahan shukrigeed inaan ka shukrino oo maaragtay aan u adeegsano bimaa yurdi allaha caza wajal, ilaahay wixii raalli gelinaya, lagana ilaaliyo cabsi, yani wax alla wixii ilaahay caradiisa keenaya oo ciqaabkiisa keenaya in laga fogaado, wax keenaya waaya. alam najcal miyaanan u yeelin lahu lilinsaani miyaanan u yeelin caynayni laba indhood, wa lisaanan miyaanan u yeelin carab, iyo washafatayni laba faruuriyood waay. yani waa abuuristiyaa laguu sheegaya. qof kastoo bini aadan carabkaas aad ku hadlaydo oo waxa aad doonayso aad ku bayaaninaydo iyo faruuriyaad way isku xiran yihiin. oo hadalkii iyo luqadii aad ku hadlaysay waa nicmo weyn oo ilaahay uu noogu nicmeeyey waay. luqaduna waxaa la yidhaahdaa litafaahum, ayaa asalkeedu sidaas waa in la isfahmo oo waxaad maaragtay wasadka mujtamaca ku dhex nooshay ay isfahmaan
waxay ku imaanaysaa can dariiqi luqa. luqadiina asalka waxay ku haydaa waa carabkaas iyo maaragtay faruuryahaas iyo qalabka isku rakiban oo makhaarijuulxuruuf, xuruufta meeshay ka soo baxayday aswaata, yacni taasaa maaragtay saldhigu ah. marka waxaasoo dhan waa nicmo ilaahay. codka markii laga qaato oo hadalkii laga qaato ooda hadli karaynin, nicmo weyn oo maaragtay laga qaatay weeyaan, oo dhibaatadeeda leh maaragta. wa lisaanan miyaanan siin carab iyo wa shafatayni laba faruuriyood. marka carabkaas iyo faruuryahaas waxaa la rabaa in loo adeegsado bimacnaa luqadaada iyo hadalkaaga fil khayri inaad u adeegsato, fii maa yurdi allaha inaad u adeegsato, ilaahay diintiisa inaad u adeegsato, garab istaageeda iyo maaragtay inaad iyada fidiso, ku camal fasho, ummadana ugu yeerto, yacni iltisaamka taqwada ilaahay, taas inaad u adeegsato way. oo maaragtay adawaadkaas ilaahay ku siiyo kuu sahlay fil khayri inaad uga faa'iidaysato. oo waxa weeye muddo yaroo kooban baad joogayda adduunkan, muddadaa kooban kii ka faa'iidaysta inaad noqoto. allah inaga dhigo kuwa ka faa'iidaysto khayrka iyo wanaagga uga faa'iidaysta ee aan xumaanta la aadinin. allah inaga dhige. wahadaynaahu miyaanan hanuunin waaye, hu insaankii miyaanan hanuunin, annajdayni labadii wado miyaanan ku hanuunin waaye, yacni labadii dariiqaa leh miyaanan barin waaye. hadig waxaa laga wadaa macnaa tacriif waa barnay waaye, yacni dariiq alkhayri wa dariiq ashari ayaa loo kala cadeeyey waaye. oo maaragtay risaaladii yani ambiyada ilaahay uu soo dirayey oo qofka loo cadaynayo laleeyahy hada huwa alxaq, wadadaas kalena halkaasay tegayda loo kacad. waa nicmo ilaahay noo galay oo qofku markaa laleeyahay dooro adiga meeshaad qaadaad beri taallaa wey, wadadaad marto ayaad markaa beri taallaa. miyaana wadadii u cadaynaa laleeyahay wadadii khayrka iyo midii wanaagga iyo xumaanta soo uma kala cadayn. yacni waxa weeyaan bannaankaasaa lagu soo dhigay, adiladiiyaa taalla, kitaabkii ilaahi iyo sunnadii nabiga yaalla. marka khayrka wadada khayrka inaan qaadno ayaa maslaxadeena fii dunyaana wa fii ukhraana, maslaxadeena halkaasay ku jirtaa waay. markaa lagu leeyahay wadadii waa lagu kala cadeeyey. adduunkan aad arkaysa ilaahay baa iska leh, addoommada jooga allah iska leh, diintiisana asagaa soo dejiya nabigiisa sala allahu aleyh wasalam, asagaa soo diro qur-aanka iyo sunnada nebiga usoo dhiibay. kaa ayaa la raba wadada kuu cadaynaya oo khayrka kuu cadaynaya, asagaa in lagu dhaqmo weeye. waxa uu kuu sheegaya in la qaato weeye, waxa uu kaa reebaya inaad ka harto weeye. wadadaas wanaagsan ayaa la rabaa ummaddu inay ku dhaqaaqdo. haddii laga leexdana waxa weeyaan adiga unbaa doortay dariiqi shari, sharta wadadeedii baa dooratay, beri wixii ka yimaada adiga unbay ku sugaysaa waaye, qoladii ka leexata. marka insaankiyaa marka lala hadlaya waxaa la yidhi falaqtaxama macna iqtixaamu oo maaragtay koro waaye, alcaqabata buurta maa koralay, buurtan yani xoog maa ku koro, buur culays badan ayaa hortaala insaankii. markaasaa lagu leeyahy buurtaas maa koro, xoog ku koro waaye. iqtixaamku waxa weeyaan nashaad maa ku koro oo maaragtay yani mawaanicda iyo waxyaalaha ka hor imaanaya taacada ilaahay inuu maaragtay qofku suubiyo. waxaasoo dhan waa caqabaad. caqabaadkaasoo dhanaa la rabaa inuu qofku jeexo oo ka gudbo oo xoog ku maro oo casiimo iyo hami xoog badan nashaadkaas inuu ku maro. marka waxaa la yidhi falaqtaxama muu iqtixaamoo galo, xoog ku galo alcaqabata, yacni caqabada buurta maa koraale. buurta maa xoog ku koro, buurtan culayska badan ee dhibka badan ee dhagaxda badan ee horta aan si sahlan lagu koraynin, buurta insaanku maa koraale. markaasaa lagu sheegaya caqabadan buurtan cajaa'ibta badan leh oo lagu leeyahay ma insaanku koro yaa lagu cadaynaya. alla wuxuu yidhi wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey mal caqabatu, caqaba waxa ay tahay, buurtan waxay tahay ma garanaysaa le, buurtan waxa ay tahay ma garanaysaa way. hadda lagu sheegayaa lagu leeyahy yacni buurtan wax badan baa ka sokeeya. waxa weeyaan naftii oo maaragtay yacni warwareega khayrka ka wareegsanayda, hawadeeda iska raacayda, shaydaankiiyo kuu dhex taagan, waxaasoo dhammaa meesha yaalla. marka qofka waxaa leeyahay daacada ilaahay inuu xoog u galo ayaa lagu sheegayaa. wamaa adraaka maxaa ku ogeysiyey mal caqabatu, caqabadu waxay tahay
maxaa ku ogeysiyey waa laguu sheegayaa dhegeyso haddaba marka caqabadaas buurta dhibka badan leh ayaa lagu tusayaa sida loo koro iyo waxa lagu koraayo ayaa lagu sheegayaa maaragta ilaahay wuxuu yiri fakku raqabatin waayale yani waxa lagu koraya buurtaas iqtixaamka lagu suubina waxa weeye fakku raqabatin qoor xoreynteed way qoor xoreynteed qoor la xoreeyo taa weeyaal weeyir yani waxa weeyaan adoonka ama adoon la xoreeyo ilaahay dartii loo xoreeyo waxyaalaha taacada oo ilaahay loogu dhawaado waxyaalaha ugu qiimaha badan weeyaan waxyaalaha ugu qiimaha badan weey marka laakiin naftii waxay ku leedahay xoolahaaga iska bixinin meesha maaragtay hantidii waa yaraane wax u balaaya ku aqrinay shaydaankiina waa daba jooga marka waxaa lagu yiri fakku raqabatin qoor xoreynteed weeyaan marka qoorta adoonkii oo dhan loo jeeda min baabi tasmiyat aljuz wa iradat alkulli di waa balaqad markii la joogo la oran jiray marka waxa weeyaan qoor xoreynteed weey aw it'aamun ama quudin waaye la quudiyo qoorta yani buurta kurideedu quudin weeye fi yawmin maalin dhexdeed la quudiyo maalintaas oo dii masghabatin gaajo u saaxiiba maalin gaajo u saaxiiba weey oo raashin ku qaali yahay oo raashinkaan la helaynin oo iscadagtaasi wax lagu helo gaajada ay badan tahay meel kasta la daadsan yahay wax la soo qaada aan la helaynin maalintaa ninka wax quudiyahay waa ninka buurta ka gudbay wey allahu akbar waa arrin aad iyo aad u qaaliya marka ilaahay baan ugu hanuuninaya na tusaaleynaya meesha inaan u tartanno oo qofku marka baahidu ay jirto oo ummadda ay gaajada ku jirto oo dhibaatada ay ku jirto waxaa la rabaa inaadan wax kaydsanina meel wax ku xaraysanin aad maalintaas ilaahay dartii wax u bixiso oo dadka aad quudido masaakiinta aad garab istaagto ummadaha baahan aad garab istaagto maalintaas weeye midda buurta lagu gudbaya oo looga gudbaya caqabada looga gudbaya aw it'aamun ama quudin waaye fii yawmin maalin dhexdii la quudiyo maalinkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiiba yatiiman la quudiyo ujeedaa it'aamun yatiiman la quudi agoon maalintaas agoon la quudiyaal wey yatiiman yani itcaamul yatiim waay agoonkii quudintiisa waay yani yatiiman la quudiyo yatiimkaasoo daa maqrabatin dhawaasho u saaxiiba waay yani waa agoon aan aabba lahayn waa yatiim oo qaraabadii ka mida qofkaas buurta inuu koro raba qaraabadiisuu ka mid yahay agoonkaas halkaas joogo qaraabadaadii ah ma rabtaa inaad buurta gudubto inaad ka gudubto daacada ilaahay ka gudubto waxyaalaha ugu qiimaha badan agoonkaas aad qaraabada tahay gacan qabo u tag yani ilaahay dartii wax u sii ilaahay dartii u garab istaag ilaahay dartii u caawi waxa ilaahay loogu dhawaado waxyaalaha ugu qiimaha badan ayay ka mid tahay waay yatiim la quudiyo waa agoonkaasoo daa maqrabatin dhawaasho u saaxiiba aw miskiinan ama la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin carar u saaxiiba waaye matraba yani caro dhaca la yidhaahdaa yani caradiyaa ku dhegtay waay ay laa shaya calayhi wax korkiisa ah oo ka xiga lama arko waaye wax u haysta lama arko waxaa la mid yahay qof caradii ku dhegoo kale yani jirkiisa iyo carada ciidda wax u dhexeeya ma leh agoonka noocaas oo kale oo la quudiyo weeyaan oo loo gargaaro la gacan siiyo la garab istaago ayaa buurta lagu koray looga gudbayaa uma kaana muu ahaadaa la yidhi marka uma kaana qofkaasu yani qurbigaas oo la dhowaanayo oo ilaahay loogu dhowaanayo asal ahaantiisa waxaa la meesha uu salka ku haya waa ee lagu sheega kana kasii horeeya ma ahaadaa la qofkaas uma kaana muu ahaado min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo watawaasow dardaarmay bisabri isu dardaarmay sabarka dulqaadka watawaasow isu dardaarmeen bilmarxamati naxariista isu dardaarmeen calaa cibaadillaahi addoommada ilaahay loo naxariisto wey yacni qofkaas inuu ahaado intifaaciisu wuxuu noqonayaa oo arrimahaas lasoo sheegay ku intifaacaya qoorta xoreynteeda agoonka quudintiisa miskiinka waxtaridiisa waxaasoo dhan markay wax kuu tarayaan waxaa ka horeyda yacni min aladiina aamanuu inuu qofku ka mid yahay kuwa ilaahay rumeeyey oo iimaankii saxiixa ha la yimaadeen liannahu iimaanku
waa asaasu qubuuli lcamali, camalka aqbalidiisa ayuu asaas u yahay waaye. haddii iimaan la waayo wax kastoo suubidahay waxay kuu tarayaan lama arko, waxay kuu tarayaan lama arko. marka iimaanku waa ugu horeeya waxa dhan, waxaa la waaye acmaashoo dhan tanbani calayhi, asagay ku dul dhismaydaa marat, asagay ku dul dhismaydaa. watawaasow marka isu dardaarmeen bisabri, dulqaadka waay calaa taacati illaah, ilaahay daacadiisa loo adkaysto, macaasidii laga adkaysto oo laga tago, macnaha waxyaalaha oo masaa'ibta weyne qof ku dhacaya qofku u dulqaato. waxyaalahaas oo dhan sabarkii aqsaamtiisii halkaa ku jirta maarata. watawaasow isu dardaarmeen, isku booriyeen bilmarxamati, naxariis calaa cibaadillaahi, addoommada ilaahay loo naxariiso, midkooda taagta daran, midkooda gaajaysan, midkooda maaragtay curyaanka dharka aan haysanin, midkooda caafimaad daradu hayso, cudurku hayo, midkooda jahligu hayo, midka diin la-aantu haydo. waxaasoo dhan loo gurmado oo la baro, oo kayfiye kasta oo addoommada ilaahay aad ku anfacayso qofka muslimka ah waa looga baahan yahay waay. ulaa'ika kuwaas yacni almawsuufuuna bisifaati almadkuura waay, sifooyinkaas lasoo sheegay kuwa ku sifaysan oo hadda ilaahay uu aayadiha hore kusoo sheegay, sida xoreynta addoommada la xoreeyo, masaakiinta la quudiyo, agoonta la quudiyo, iimaankii laga mid noqdo, mu'miniintii laga mid noqdo, laysu dardaarmo sabarka iyo dulqaadka iyo naxariista addoommada ilaahay loo naxariisto. oo dadka sifaadka iska lahalay ulaa'ika kuwaasi asxaabulmaymanati, midigta asxaabteeda weeyaan, midigta asxaabteeda weeyaan. dadka midigta kitaabkooda laga siinayo weeyaan. kuwaasi waa dad aad iyo aad u cajaa'ib badan waay. yacni jeesahoodana waxaad ku arki doontaa suuratulwaaqica ayaa meeshaasa lagu cadaynaya, meelo badan oo qur-aanka ka mid ah. waaladiina kuwa buu yidhi alle kafaruu kufriyey, waa qoladii kale khayrka aan lahayn, biaayaatina aayadaheena kuwii ku kufriyey, hum iyagu asxaabulmash'amati, mash'amada yacni bidixda asxaabteeda waa asxaabu shimaal waaye, ama shu'miga baaska asxaabtiisa weyn, naarta kuwa gelayo ilaahay u diyaariyey. muxuu ahaayey naarta loo diyaariyey oo maaragtay ama kitaabkooda bidixda laga siinayo, min waraa'i dahrihi laga siinayo, kuwaas weeyaan. waa kuwa aayadaha ilaahay diiday, waa kuwa kitaabka ilaahay diiday, waa kuwa sunnadii nebi maxamed diiday sala allahu caleyh wasalam, waa kuwa diiday inay wadadaa khayrka maraan, waa kuwa diiday inay ku daydaan nebiyullaahi maxamed sala allahu caleyh wasalam, hadigiisii inay qaataan oo wadadiisii maraan, kuwa diidoo ka doortay shaydaanka iyo wax ugu yeerayo. ilaahay naga badbaadiyo. ilaah wuxuu yidhi waaladiina kuwii kafaruu kufriyey biaayaatina, ay aayaatillaahi waaye, aayadaheena kuwa ku kufriyey, hum iyagu asxaabulmash'amati, baaska asxaabtiisa waaye, ama bidixdii asxaabteeda weeye. calayhim korkooda waxaa ahaaday naaru, naar ayaa ahaatay, mu'sadatun lagu daboolay waay. naar lagu daboolay, mutbaqatun muqlaqatun calayhim waay. naar lagu daboolay, jahanamo inta la geeyo oo lagu daboolo, halkaasi qurunkeedii kuleylkeeda kulli ay ku gubanayaan. masiirkaa xun baa sugaya waay. qolo kastoo kufri doorata, gaalnimada doorata bianwaaciha almukhtalifa, oo qaar la qurxinayo, qolo isku dayda inay wax wanaagsan kaaga dhigto, waxaasoo dhan meel gaari maayaan. noloshuna waa gaaban tahay. nin walba wixii aad qaaday, haddii aad ka leexato dariiqii ambiyada, markaad ka leexato halkaas xunay kugu dambaynaysaa waay. calayhim korkooda naarun ayaa ahaatay, mu'sadatun mutbaqatun lagu daboolay waay.